Hello everybody. May the peace and the blessings and the mercy of Allah be upon you, all of you everywhere in the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you see in the title, Duqbuqulu, a gangster, a mafia leader who is danger to the security, stability and the peace of United States of America and the American people. He's from East Africa. He positioned or lives Virginia, Washington area. He's a truck driver. He has a badge called Gobsoor, Gobsoor. He encouraged the youth to kill innocent Americans, to take the innocent lives of American people. He's well known among the Somalians and the East African community. I think he's originally from Habasha or Amhara tribe. A father from Amhara and a mother from Somalis. But he recently learned how to speak Somali, so he speaks a good Somali language. This guy can commit a big crime, like Las Vegas. He's encouraging the youth, especially the girls and the tribes, to kill American people. Yes, I'm kind of requesting from the police officers, the FBI, the Homeland Security, to watch out this criminal who's danger to the security, peace and the stability of the United States of America and the American people. We need peace in our streets. We need love. We don't need haters and killers in our streets. We will not accept gangs and the gang members in our community. We will not accept Al-Qaeda, and we will not accept Al-Shabaab and ISIS members. No. Now for killing. A lot of mothers and family members are grieving because their beloved ones were shot dead by Somali gangsters, Somali mafia like Duqbuqulu, who is encouraging to kill, who's encouraging the youth to fight, like East Africa, like Somalia, like the civil war between, is igniting, encouraging the tribes to fight, to kill the leaders of the opposite tribe. He lies and makes propaganda against the well-known leaders in the community, like me, who reach weekly almost 1 million, who have almost 1 million viewers per week, almost 4 million people per month, and almost 50 million viewers per year. Yes, a lot of innocent Somalians were killed in Minneapolis, in Columbus. A lot of Somalis were killed in Canada and many states in the United States of America. I have been gunned down in Memphis. The CNN, Fox News, even Russian news, RT, Russian television, aired when Somali gangsters and mafia gunned me down in Memphis mosque. Yes, Allah has saved me from those criminals who speak my language, those who have my color, and who may belong, may be my blood and flesh, but they are wolves, killers, thugs, haters. I'm kind of requesting from the Minneapolis police officers and law enforcement to clean these dirty gangsters from the streets of this beautiful city, the Twin Cities, St. Paul and Minneapolis, to put behind the bars for those killers and anyone who supports those killers, those gangs, anyone who hides them, anyone who supports them financially, like Duqbuqulu, who offered thousands of dollars, that criminal boy who was in Miller or Wilmer,
spit on my face and was trying to kill me. But now police are investigating and they are behind him to put him behind the bars. Yes, he's the one who encouraged him and said, yes, you did a good job. But he said it was better to take his life, to shoot him and kill him dead. That's what Diq Bukulo, the gangster leader who is danger, the Somali community who is in Virginia area, who can attack the White House and many places and government buildings in Virginia and Washington. I believe this guy is danger and we should stop him because he's criminal. Yes, we don't need haters, killers, thugs, wolves in the shape of a human being. No. A lot of mothers of my community and my people are suffering because their beloved ones were shot dead in front of them. Yes, young brilliant students who graduated college and universities, high schools and middle schools. Yes, we should encourage the law enforcement, and we are willing to work with them unconditional and voluntarily to get capture, put behind the bars those gangs and member leaders in our community. Yes, that's what we need. As an imam, as a religious leader, I'm encouraging every Muslim, every Somali member, every American who came to this country. Yes, we have criminals. We should not hide. That is your faith. Allah said in the Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Help you one another to the good and righteousness. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. And do not support one another to sin and animosity. Yes, killing innocent life is a major sin, as Allah subhanahu wa ta'ala said, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. If you murder and kill innocent life, it is like that you have killed all humanity. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. And if you save a life, it is like that you have saved all humanity. It is must obligatory upon every Muslim man and woman to stop the criminals, to report the criminals, not to support them, not to hide them, not to buy a ticket so they can fly to back home, Somalia, maybe from Canada, or maybe from Cuba. Yes, our mothers are suffering. We have gangsters. A lot of women are suffering. A lot of young women are suffering. There is a lot of rape in our community, a lot of killings, a lot of kidnappings, a lot of stealings. Yes, drug dealers, thugs. We should stop them. Yes, we can if we think we can. We should fight them like they fight us. We should catch them and put them back. If they kill the people, yes, we should use leather injection to take their lives. That is the solution. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. The killer should be killed. The killer should be executed. And I'm very happy, very glad that almost 28 states in the United States of America, they have this rule. If you kill, you will be killed. 28 states in America. And I am kindly requesting from other states to implement this principle, which is very important for our security. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. If you kill, you should be killed. If you take the life of the innocent civilian, your life should be taken. You don't deserve to walk in our streets. You don't deserve to walk in our streets, in our schools, in our restaurants and markets, because you're criminal, because you're a hater, because you're a killer. Yes, the police officers in Minneapolis and Twin cities like St. Paul and Minnesota State, and also Columbus, Ohio State, they can catch if they are honesty. But I do believe there is no, honest. They're not honest. They're not honest. I am making clear they're not honest. Yes, it is very easy to catch them, to get them,
to put them behind the bars, these wolves in the shape of human being. But let me tell you and make clear, there are adults and elders among men and women who are encouraging the youth, both women and male and females, to kill, to rob, to rape and kidnap. So we should get those criminals among the community leaders, among the community members, among whether they are businessmen, whether they are in the mosque, whether they are in the street, whether they are in the schools, whether they are youth, anyone who's encouraging this, he's a criminal, because he shared and encouraged for killing innocent life. Do not hide a criminal. Do not support a criminal. Do not give money. Do not encourage the youth to kill. Like this, a gang member, this guy, Doc Bokolo, the so-called Doc Bokolo, the criminal, the gang member who is encouraging the Somali youth to kill people like me, to take my soul. Therefore, I'm kind of requesting from the law enforcement to watch out who's in Washington and Virginia area, who's a truck driver, the guy who's encouraging the others to kill like people like me. He can attack a big group of people, of Americans, because he's driving a truck. So we should stop him, watch him, look his movements, where he goes, who he meets, how long he drives. He's a very dangerous guy to United States of America and its people. He encourages the different tribes in the United States of America, from Somalia, to fight each other, to kill each other. Ogaden and Madiban, Ogaden and Marehan and Madiban, and other tribes, Habergidir and Madiban, Cherten and Habergidir. That's what he does. So that's why we have a lot of killings. We should stop such men, those gangs, members, gang leaders. Those are using the media for the killing of innocent lives. My job is to see a productive citizens, to see a young students who are brilliant, a good police officers, soldiers, doctors, engineers, and so on. So good businessmen. That's what I would like to see. A good imams, righteous men and women, sisters who are dressed nicely and are proud to their tradition, brothers, sisters who are speaking their language, and also respecting people here in America. Yes, we can stop the criminals. Yes, we can stop those who are danger to our lives. Yes, we can support one another to stop those who are threatening us and our lives. Yes, I felt shocked when this gang member or this gang leader, whose name is Doc Bokolo, originally from Habasha or from Amhara, a mother from Somalia and a father from Amhara, who is Tigraya, Wayana, who is a very dangerous guy to the lives of Somali Americans. Yesterday he was encouraging the youth to stop me and kill me. He was encouraging that young guy who committed a crime against me, and hopefully well-planned job, who planned to take my life because the Bokolo and others are offering them money. He said, you should kill him. You're supposed to take his life. You're supposed to make him, to take his life and let him die. He said, I'm offering for you money. You are a great man. You are Superman. You're supposed to kill him. You're supposed to kill him. Look, this is danger. We feel fear. So the law enforcement and the Homeland Security will watch these gangs, these wolves. You can kill in the streets of Minnesota. Let me tell you the truth. The Somali community in Minneapolis, in St. Paul, in Ohio, in Columbus, they live in fear because of these wolves who are danger for their existence, their lives. If you can't make peace in our streets, leave the office, please.
Leave the office, please. Whether you are senator, whether you are a mayor, whether you are a governor, whether you are a congresswoman or man, whether you are a police chief, whether you are whoever you are, whether you are a president, if you can't clean these dirty people, leave our streets. We should get them. We should catch them, put them behind the bars, because they are very dangerous people. Yes, we're not waiting like Las Vegas to happen here in Minneapolis, in Columbus, in Virginia, like these wolves like Dick Bukulo, who's Amhara originally. Very dangerous people who are encouraging the youth to kill, encouraging the youth in public, and nobody can stop them. And nobody will catch them, nobody will stop them. Not just they are doing this, encouraging in public the youth, our beloved young girls and women and boys. They are encouraging to kill the people. America, it is time to wake up. Wake up. You can get these criminals from our streets and isolate and separate from the people, because they are not human beings. They are wolves in the shape of human beings. We don't want so many brilliant students, women and children, and men and women die in front of us. Almost there are more than 150,000 Somalis. They live in fear. Again and again, I am kindly requesting from the law enforcement to watch those guys who are danger to the society, to the existence, to the lives, to the business. Yes. Thank you so much, and I'm thank you. Aftaliyani waa ku hadli karnaa. Amxaaradana waa ka adagnaa xaaraanta ah. Amxaarada xaaraanta ah. Walaalayaal, barakallahu fiikum. Insha Allah ta'ala xaaraanta oo dhan waa qabanaynaa, waana iska dhicinaynaa insha Allah ta'ala. Waa la hadalnay amniga qaranka Mareykanka. Alxamdulillah waa la hadalnay madaxweynuhu ugu horeeyo, Homeland Security, FBI, law enforcement, police chief, gudoomiyaalka degmooyinka iyo gobolada. Waxaan la hadalnaynaa ama la codsanaynaa oo la hadlaynaa madaxda booliska dhammaantood in dadka khatarta ku amniga Mareykanka, shacabweynaha Mareykanka sida xaraan ku naaxan amxaarka oo awoodina ay tahay Soomaalida sida la sheegay Diq Buqlow oo cayaalkii iyo gabdhihii sidii al-Qaacida iyo al-Shabaab ku dhiirigelinaya inay wax dilaan, miskiinka alla oo kala toogtaan, inuu abaalmarin siinayo sidii cajaladiisa shalay la duubay oo meel la dhigay oo uu leeyahay aniga abaalmarin ku siinaya inaad dishaa fiicnayd uu leeyahay. maantana gabdha yar yar oo al-Shabaab al-Qaacida ah uu soo galay oo la dab casar baan dilaynaa. marka ciidamada amniga qaranka ee dalka Mareykanku way og yihiin in aniga bishii Ramadaan alla ii toogan gaaray, xabad la igu qabtay. dadkii soo dhiirigeliyay carruurtaas ii toogan gaartayna waxaa ka mid ah ninkan Diq Buqlow la dhaho, ninkaasoo taraag wada, ninkaasoo khatar ah, ninkaasoo taraaga inta ka buuxiyo hub iyo waxyaalaha qarxa White House-ka weerari kara saan anu aaminsanahay, dhismayaalka Mareykanka weerari kara, xeryaha militariga weerari kara. maxaa yeelay nin le carruurtii iyo gabdhihii ku dhiirigelinaya inay isqarxiyaan, inay dadka dilaan, inay miskiinka alla dilaan. waa ninkaasoo kale, waa nin khatara weey haddii ay ku idmaayeen. marka waxaa looga baahan yahay amniga qaranka waxaasoo kale inaysan fududaysan. ma sugayno inay dhacaan wixii dhacay nagu dhacay oo kale Las Vegas, oo dad aan isleenahay wax khatara ma samayn karaan, ay balaayo ay ka wareegeen oo dadkii ay laayeen. ninka kan wuxuuba asagu waaba cadaysanayaa, carruurtii buu leeyahay dadka laaya, dabcasar dila, dadka laaya, shaqo waa in laga qabto, waa in maaragtay la soo xeeyo. qabiiladii isku dhiirigelinaya inay isdilaan, istoogtaan, oo carruurii waa kuwan isku dilay Minneapolis, Ohio, meel kasta. sidii shalay uu lahaa uu leeyahay ogaadeen fadhiga ka kaca magaciin jir tolbeelay ma dhibaan adilay ku idmaayo ma reexaan iska dhici ma reexaan ilka yar habar gidilay ma dhibaan isgala uu leeyahay. yani carruurtii isku dhiirigelinayo. waxaan leenahay marka dalka Mareykanka waxaan wasakhda ah oo memberska oo dharka qaba oo laakiin miciyaha dhaadheer
oo xayawaanka oo bilaa naxariista ah xiriyo waaweyn in lagu xareeyo weeye bani aadam ma aha dalkoodii bay soo gubeen hooyooyinkood bay soo gubeen hilbaha bani aadamkay cunaan dhiiggay cabbaan ma aha dad sharaf leh ma aha xayawaan weeye dhar qaba haddii ilahay kudma oo bilaa naxariista haweenka aan u naxariisan culamo aan u naxariisan oday weyn aan u naxariisan carruur aan u naxariisanaynin dil iyo dhac iyo boob iyo biliqo ayay yaqaanaan iyo barakicin wax kale oo ay yaqaanaan iyo insaaniyad kale oo yaqaanaan iyo naf in la badbaadiyo iyo in nolol la helo iyo in ganacsi la helo waa u fasira dadka Soomaaliyeed u fasira gaar oo dhan u fasira iyo in tacliin la helo iyo in shaqooyin la helo iyo in guur dhalinyaradu helaan iyo inay guryo helaan iyo inay horumar gaaraan ma aha waxay dhaqaan sida arkaysan ninkan jiqboqlo gabdha yar intaas u yeertaa leh dadka dila dabcasar dila laaya marka aniga dilkii la idilay waxay ku cadeynaysaa ninkan Memphis qisadii ugu dhacday iyo qisadii ugu dhacday Wilmarba ninkan inuu qayb ka yahay dadkaas oo kale waxaan ay u kalifay ummadda Soomaaliyeed inaan duubo kadib markii anigu aan axsaan sameeyay oo sharaf sameeyay oo wanaag sameeyay oo alla ka cabsi aan sameeyay in haddii ilaahay ku idmaayo dad dambiilayaala oo aan aaminsanahay dad badan inay dileen oo waxayeen ay meediyaha adeegsadeen oo ay ku dhiri dadkii ay ugu direen oo ay kiciyeen oo dulmi ah oo gardarro ah oo xaaraan ah oo idab darro ah oo saqajaanimo ah oo qabaa'ilkii ay isku kiciyeen Soomaaliyeed mareexaan iyo madhibaan ogaadeen iyo mareexaan iyo ogaadeen iyo yani habargidir iyo madhibaan haddii ilaahay ku idmaayo oo maantay inta hooyo ooyeysa oo madhibaana oo haddii ilaahay ku idmaayo gabooyaha oo soo wacsan warmaanow wiilkii aan jecleynow shiikhanagiyow imaamkanagiyow eedow adeerow abtiyow maxaa oo leeyahay hooyooyin waad jecelahay been yaa la idiin sheegin niman amxaara ah oo uraaga ah oo tigraanyo ah oo wayaano ah oo aan naga dhaxaynin oo maaragtay haddii ilaahay ku idmaayo qaarkood muslim aysan ahayn isku keendirin wiilkii nimaan ahay waa idin jecelahay xumaan idinma qabo haddii ilaahay ku idmaayo wanaag iyo sharaf baan ka shaqaynayay haddii khalad iga dhaco erayaga dhacayna raalli ahaada xanaaq iyo caro wiilashiinu ay ii geysteen baa iga keenay xumaanna idinma qabo xumaanna nooma dhaxayn wanaag iyo khayr inaan ka shaqaynayana waad u jeedeen ilaahayna waa u jeeday amxaaro iyo uraago iyo dad maaragtay dhiigyo caba oo ka xun walaalnimadeenna iyo islaamnimadeenna iyo soomaalinimadeenna amxaaro ah inay isku kaayadiraan ma aha taas waxaa dheer anagoo ah dad maraykan oo shacab maraykana inay hubka suukaya dhiibaan sax maahan khalad weeye inay nacayb iyo naga dhex abuuraan khalad weeye meeshan amni baa ka jira kala dambayn baa ka jira qofkii dhib loo geystow ama anigu aan dhib u geystow ama isagu ii geystow sharci ayaa jira adigoon baqbaqdhihin adigoon isu haysin adigoon dad dilin adigoon isu galgalan ayar dacwood sharciga tag kala dambayn baa ka jirta meeshan sharci baa jira maxkamadaha jira huwaadan iyo wax kale iyo aargoosad iyo isweerar iyo jabaadihii qurmuna oo kale jabadda manibaan jabadda mareexaan jabadda habargidir jabadda ogaadeen war waxaas huwaada maraykan inay ka dhacdo ma yeelayno waxaan ka codsanaynaa madaxa maraykanka FBI-da booliiska law enforcement-ga amniga qaranka guddoomiyaalka degmooyinka iyo gobolada waxaan ka codsanaynaa dadka argagaxa ku haya ganacsatada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed dhallaanka Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed culamaa diinka Soomaaliyeed guddooyinka laga joog waayey guryihii laga joog waayey laga seexan waayey min fadlakum idinkoo mahadsan qabta xira jirdila meel daran iyo baaska turtarxiila yani joogta in leather injection ku dila waxa qofkii qof dilay in la dilo waajib weeye 28 oo dalka Mareykanka ah waxa ka jirta sharciga ah qofkii qof dilay in la dilo weeyaan walakum fil qisas hayatun ya ulul albab ayadaas ay hadii ay gudmaayo ay hirgeliyaan hadii ay gudmaayo ayadaas hadii ay gudmaayo ay hirgeliyaan waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed amxaaro yeesan ku dhex gabanin amxaaro waxaan ka warhayaa amxaarka diiq biqlow ee qaatilka ah inuu Maraykan badan dilay baan aaminsanahay Soomaali badan inuu dilay baan aaminsanahay criminal inuu yahay aaminsanahay in sidii Las Vegas oo kale uu geysan karo dambiye aad u waaweyn taladeeda maanta warkaygaas qor hadii ay ku dhimay ninka maanta la carruurtii Soomaali ku dhiirigelin inay wax dilaan inay wax qarxiyaan inay wax boobaan inay wax dhacaan inay qabiil u kala baxaan inay isku halaagsamaan ninka caynkaas waxa weeyaan wuxuu khatar ku yahay amniga qaranka ee Maraykanka maxaa yeelay anagu waxaan qayb ka nahay waxaan nahay Soomaalida Maraykanka ah ee dhalashada dalkan haysata ee muslimka ah ee
nabadda jecel ee wanaagga jecel ee sharafta jecel ee horumarka jecel ee shaqada jecel xaq uma lihin in la toogto xaq uma lihin in la caga juglayo xaq uma lihin in la ka nixiyo xaq uma lihin in la kufsado gabdhaha nagi la kufsado haweenka nagi la kufsado xabsiye lagu rito meel daran laga tuuro la gumaysto la caga juglayo basteelada madaxa laga saaro qofkii ka hadla dulmigana la dhaho hadii ay ku dhaca waa waray arrintii buu fahmay dulmigu ka horjeeda waa dulmi diid waa qabyaalad diid waa xumaan diid waa raysiis diid waa cusurnimo diid waa waray seeb runta u sheegay war waa hadlaynaa war waa qaylinaynaa war waa runta sheegaynaa war ninkii ka naxayo ka nax war nabad baan u baahannahay war nabadgelyo baan u baahannahay war walaalnimo baan u baahannahay war jacayl baan u baahannahay war dil ma rabno war dhalinyarada shaqooyina loo abuuro war iskuulaha loo diro maxay tahay gaangistirada ma dhibaan gaangistirada ma reexaan gaangistirada ma jarteen kuwa hadila habargidan kuwa ogaadeen war waxaa qurunka hal xaqo hal qabqabto waa la qabqaban karaa wallaahi thumma wallaahi waa la qabqaban karaa waa la xaqi karaa qofkeen war ha qarinin ha taageerin lacag ha siinin ha dhoofinin dalka ha ka bixinin haddaad saa yeesho dambiilaa tahay haddaad qariso haddaad guri gelisid haddaad taageertid haddaad dhiiri gelisid haddaad lacag siiso wallaahi thumma wallaahi kriminaal baa tahay diinta islaamkuna wuxuu nacladay nabiyullaahi maxamed sal slam uu yidhi lacana allahu man aawaa muxdathan lacanadi ha ku dhacdo qofkii qof dambiilaa qariya lacanad ha ku dhacdo yidhi kriminaal weligay saan uga hadlay maanta kor uma hadlin weligay maanta saan uga hadlay weligay uma hadlin waxaynoo ballan soomaaliyay sharcigeena ku kala baxno waxaa ballan inoo ah haddaan idinku cafiyo weligay hay cafinina qisadii manfas inaan loo yaro qabsado ballan ilaahay bay igu tahay inaan ballan qabsado qisadii manfas aad igu samayseen waxaa badda madaxaad iga saarteen ballan ilaahay inaan maxkamad idinku saaro midda wilmarne ballan ilaahay maxkamad inaan idinku saaro taa waxaan ku cafin karaa idinku heshiiya walaalooba dulmigaad iga gasheenna iga raaligeliya shuruud la'aanne gabadha miskiinta ah oo aad godka ku rideen oo aad meedhiyaha meel walba sharmutada ka leedihiin oo waa midgaanta aad leedihiin oo waa madhibaanka aad leedihiin oo waa keeriya kaar leedihiin oo qabiilka afkeeda ay ka sheeganaysa iyo tolkeeda iyo rayskeeda aad ka inkiraysaan oo dadkeedu ay joogaan oo aad ilmaheedii ka qaadateen oo aad intaasoo jeer xirteen oo aad dulmiseen oo aad ku been abuurateen oo aysan luqadda aqoonin wallaahi baanan ka aamusayn oo billaahi baanan ka soo aamusin oo tallaahi baanan ka aamusin yaquulu allahu jalla wacalaa fi kitaabi alkariim haweentii dacwoonaysay ilaahay waa maqlay ilaahay waa maqlay dacwadeedii يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير haweenaydii u sheeganaysa ilaahay u dacwoonaysa ilaahay waa maqlay qad samica allah ilaahay waa maqlay qawla alatii midii qowlkeedii tashtaki ila allah qad samica allahu qawla alatii tashtaki ila allah ilaahay gabadhii dacwoonaysa ilaahay dacwoonaysa ilaahay waa maqlay qaar waxay leeyihin waa baqay warheedhe ma baqin ee geesi baan ahay waan hadlayaa haddii ninku dhow waa ku dilayaa waa ku dilay واسوق دلك وين تطبقوا له حيروا كدليا حير هلا دلو حدير قال إلا يدلو وحكون رجل ميدا بان إنا يدلان حكون رجل أوذ قادر إنا يدلان وسوق خير دري أنا مسلمينتي مريحان وقادر لايا وقادر ومريحان لايا مريحان ومدبان لا مدبان الله هذي لا مريحان مدبان وقادر لا وقادر ومدبان لا هبرق دري مدبان دل لا مدبان وهبرق دل وأمحار وتشاتوس تسوي حريني مدحتويدا رجع كم دين بحلو يفارح سكين يبلايو دلك لما كان كتشاتوس هذه لا يقعد معي وتشاتوس لا شقيستا هذه لا يقعد مريم بسقله هذه لا يقعد مرك فربنا سوماليي اسكدعيه واسكدعين كرتان أنا دقالمهايا أيان دبنايا فلينا مي أنا قيلنايا أو دقالمهايا أو حبضيدا هايستا أوبكيا هايستا أيان دبنايا هذه لا يقعد معي رنشاق وعيب شيء ولي عاوة كهر صاروا مهلين ولي عاوة كهر مقرب استاجن FBI بوليس يهملان سكيورتي يدتك ما يردع يقدم يلقى بلده عاوة كهر مدهن قرب كنا نايم قبقبته وكوا ظلم جوده كوا القاعدة ده كوا تروريستا كوا دتك اللينية كوا دتك النعية كوا دتك كهلا يمال والبقالة دتك رجال يرى إني دتك اللايان إني اسقو خحيان إني أمريكا اسقو جماد ونيك أنا محارك ودي يقبقوا لولا ليه هاي لأن يردي وش برين قصمين هايو قبته أو حرة أو قبته أو حرة أو قبته أو اسكدعية أو نجا قبته أو مال در الله كتورة أو عقبة الله كروج على ما الله كموجي
ninkii aniga naftayda hayow iga qaad ninkii tunka iga hayow iga qaad ninkii idiri karayo idil ilaahay baa naftayda haya laakiin waxaan idiin sheegayaa ظلمي no more ظلمي قردر ديد باناي ظلم ديد باناي حمان ديد باناي حاران ديد باناي هنجبات ديد باناي دل ديد باناي دقال ديد باناي شرف يا كرامة يا حرمة يا نبض يا ولا النمو هذه لا يكون معي أيام كسوكري تاس أنا نوبل هذه لا يكون معي تاس يا نوبل أنا هذه لا يكون معي إن الفترة فرت أسكجر إنه إن أقوليه إنه أي إن كريمنال وسكوتشرين إن دوسية القرآن كريمنال وسكوتشرين مساجد وسفرسان سوقيا وسنا لتشوجين لغلوقيا وسنا لتشوجين جراش وسنا لتشوجين ميديا وسنا لتشوجين ملنا وسنا لتشوجين تلاقي قد معي ساس أيا شرفت تاس أي كوتشرتها هذه لا يكون معي والله ثم والله وحاتهين لما مدو ددك عيتميو دد ابريال كود قاتلين اهايين ومريان اهايين ومسلم ودعي جرين او دلي جرين او بوبي جرين او كفسن جرين او عاده اي لتاي ان ددك لا لاايو ان لا دحو ان لا ديلو اما idinka aha wariya qofka weyn oo muslimka ah xeelaha qaar kood ma qaadanayo waa ka horjeedaa waa diidaa uma adkaysan karo qof la dilayo qof la dhacayo war qalbi dhagax meeqa qaylinayni meeqa diidaynay war qalbi dhagaxyada Soomaaliyeed in la dilo diidnay war wadaniyiinta in la dilo diidnay war Soomaalida qurbaha in la ugaarsado diidnay war ganacsatada in la ugaarsado diiday wariya waxaan ahaa ninkii ugu horeeyay oo soo bandhiga qof Soomaaliya oo lagu toogtay magaalada يا حسن الصومالي علي حسن الصومالي يا حسن نيكا صوبني يا حسن هو هانيكي هبر قدس الله نحرسته بيش هبر قدس الصراحة دادير مركز لقيته مسجد كان خالد يو كارميل يو مركز لقيته قدالو بحلو بسرو دادير نيكي سكوريتك هبر قدس يا دلي نيكي سبانا دي صور ماشي كل عبارة دين صور نيكي عدان كايو أركاي صومالي قدلي يعني دين صور ورئيست صومالي وهابت الكسر وعرنا واي أدوش عيشين ظلمي واي أدو قرينيستان قال دي ما إنك يابن أو إذن كيابن أو إذن كيابن قف بها واحد لي صد كندا كدو في نسان صد كوبا كدو في نسان كندا كدو لي صد كوبا كدو في نسان ورتقوا الله ورلا يكبقى ورظلمي اسكداي ورقبت ورحرة ورشيقة ورحقرننا وروا ومجرمين ورشرف ماله وردل دبد قفك قاتلك هلا دلو سديد يلا وطن او دلك مريكنك قفك قف دله انجكشن لادر اربد بالو دله اربط بالو دله ولا دله حق ما لنا النولات تدقف تشد ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب دي بقولوا جانجسترسكا خطرتك أمريكا قرنك مريكنك وأمن سنة إن قرحية وين أي كجيسن كران دلك مريكنك خطرنا أي كوين شعب وينها مريكنك إن جعم برا لقبته أي الأمن سنة جعم برا أو أذك كو عرورتك كل رجلنا إني وحدلان إني وحدعان إني قبيلات وكربحان إني قبيل وكربحان إني إسلايان إني إسدلان أجد كستو أو واحد تاجرتنا إن لقبته أي أن تاجرينا إن جعم برا لقدكم بوليس كروشيو لرجليو هو قرني لقبته كو العكس السنة لقبته كو أفك كتاجري لقبته كل اللي لقبته ميل درن يا ميل باس يا قنتانا بيبي لقبته ساسا لنا مدى الصومالي هنولاتو قولنا هشو نبتقليه يعافيمات يفرحنا هكون نولاتو يبغضين الآن دل يدبدبا انت هكون نولاتو نو ولو بنا وحان كلها هاي سي الشرعية كتببرو سي الشرعية باس بستولد هذا كو قادو هبك هذا كو قادو أي دليها اسكو آمنين ننكي كسو قراه أو أفعلها كسو قراه أو نفت هذا كوسو هندده هذا رجع علي هذيك سو شرعية مريكان كو حقوق الصحية إن دلنا فجسة معنا دبرت على فجسة أيه لقى جبعية هذي وان كبقينين طبعا معنا دلنا معنا دبرت على فجسة أصلي أوجد دلائي كود معي تاسع دلائي يعني كود رجلنا هي سومالو إن سلايستانه صدق بقولوا وحرامية وكريمنال ومجرمة وخائنة oo hater nacayb uu ka buuxo cuqdad ay dishay waxa la idinkaga baahan yahay inaad sheegtaan oo idin qarinin oo idin dhiirigelinin oo aad iska jirtaan oo idin la saaxiibin oo aad ka fogaataan oo aad fangortaan waxan xaaraanta dilay gudmay oo dhigicabka wada khaa'inka dilay gudmay saas la idinkaga baahan saas ayaa la idinkaga baahan ummadda Soomaaliyeed taasaan idinkaga baahan yahay waana naqaanaa ragga la shaqaysta duqboqolow ee jaatuusiinta ah ee tuugta ah sida injineer afyara iyo oo maniya bilis jooga dawladda oo
كشقيست أمريكا كشقي لكن دتك وحكد لك كتير هذا لا يقول معي ظالمين فجرة مجرمين دتك صرفت كل كوميونيتي جري بالاش كرف أما هذا لا يقول معي ظلمية أما حسدة أما حقدية أما هذا لا يقول مسدي أنا أيوة سمية هذا لا يقول معي بوغشدي هذا لا يقول معي رئيس وزراء الصومالية إنجنير أفيرا جالية الصومالية مجرم كاس كتيرتو رجع تواسيستا أو بنتك الشعب الصومالي أو هروسده هاس كتيرم dumarka iyo haweenka iyo carruurtadana ha loo dagaalamo xuquuqdoodana ha loo dagaalamo ragga dulminaya dumarka Soomaaliyeedna ha laga fujiyo ha laga qabto ha la xirxiro gabdhaha gabdhaha ha loo hiliyo gabdhaha dilay kudmay taasaan lena dilay kudmay ilaahay baa idin faray rabbul izzati wal jalaal bal jihaad ba ilaahay nagu waajibi in loo jihaado in la difaaco dadka tabarta yar haweenka carruurta iyo dadka waayeelka wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min الرجال والنساء والولدان كوا maxay ku dhacay inaad difaacdaan inaad dagaalantaan inaad u dagaalantaan xuquuqda iyo nafta iyo maalka dadka tabarta yar the helpless people of women children and elders ilaahay baa yiri war kuwa difaac kuwaas difaac ilaahay ku daay dumarka Soomaaliyeed waa inay gabdhaha difaacaan saasoo ilaahay hadii ilaahay ku daay barakallahu fiikum wa ahsan Allah ilaykum jazakum Allah خيرا marka walaalayaal safar baan ku jiray diinta ilaahay baan u shaqeynayaa Allah qof kasta oo Soomaaliya nabadgelyo Allah ku siiyo sharaf Allah ku siiyo نحريس كنولو وشرف كنولو وهبي كنولو وتعليم أدري عروض هذا نور المعامل حقه لدين هيالين إن لجوج قبلهم هيالين إن مدح لقى ترتر رؤوس ما يدل يقول هيالين هوات كسنين هوات كسن اسكدع مجرمين أنت عرف أنت كبدن صومالي ما عرفي كرتو وما راد كسن كرتو عويا ظالمين أنت اسكدع عنه قفها ظلم مني وقفها حسد وقفها عاين وقفها وقف لكن إذا روق عليه دفاع لا يكون معي اسطوره ديارس قنطال كاغا ديارس بريجان كاغا ديارس باسوكا كاغا ديارس كاغا ديارس مريكان والو غليهم فرا بدن ديارسو بان كو لا يكون معي ديارسو بان كو نو ولو بديارسو ورانو قبوي أنا ومتشيد أنا ما يهو قبوي أنا كمان الله ورانو وحان كالله يحوي نينك خائن كأ أو اسكدر قبوي يمرحان قبوي يوجادين مردبان السعد صومالي اسكدر هاي عرورتي الناقي هالك سوي فرسنا ولا دلة ده بعصر دلة ورنيك أقول شو وانيك أنا قبوي ومتشيد كمان بوينت فاهم اعترضي ودوي واهية وحكاية واتاس ومجرمين كريم النار هذه لا يكيد ما هي وبقول القف سود لي ودقالها الصومالي كسر كقيم غاتا waxaan ka hadlay waa taas walaalayaal ma aha dilay gudmaayo aniga intaan soo cuni karin soo cunay intaan soo ruugi karin soo noolaaday intaan noolaan karin noolaaday highway-ga baan ku dhiman karaa alaysa kadalik naam highway-ga baa kasran dibaan ku gali karaa anoo iska fadhiya dhiman karaa dhimasho lagama cararayo naftu waqti go'an bay leedahay ya laga hormari maayo lagana dib dhici maayo taafaan laakiin intaan noolahay waa inaan la dagaalamo xaaraan ku naaxiyada dhiig yacabka maafiyada gaangistarada alqaacidada al-shabaab waa inaan la dagaalamo sharaf si aan ugu noolaado anoo ridaya xabadda waa inaan dhinto haddii la ku idmaayo weligay caawa ka hor wallaahi baana saa u hadlin qof kasta oo Soomaaliya hub ka qaado qof kasta oo Soomaaliya uu isdifaac qof kasta oo Soomaaliya uu soo sheeg mujrimiinta sidoo kale waxa jira rag jaajuusiina oo dawladda Mareykanka been u sheega shacabkana dulmiya oo harawsi ku nool haddii la ku Soomaaliya noolaato ha israacdo madaxtooyaduna iska jirto jawaasiista diiqbiiq oo maxaaradu ay kamid yihiin
dhuxulowya ay ka mid yihiin kharribaya dalka iyo dadka iyo diinta ilaahay ku idmaayay jawaasiista maraykan beenta u sheegaan oo Minneapolis lumiyey oo shacabka ku ciyaarayna taasna ayagana waa ka horeynaa injineer afbuur afyare afdhuuq bakht iyo qurun iska jira jawaasiista ilaahay ku idmaayay Soomaaliya ha noolaato ilaahay in ku sallid amniga qaranka ilaahay in ku sallid war waxaan daahiriyo wadooyinka laga daahiriyo war xiriyo ku fura ama dalkooda u tarxiila ninka mujrimka oo criminalka ama meel darana laga tuuro ama hal la xiro ama hal la qabto ama kii wax dilay irbad ha lagu dilo waxbad ha lagu dilo 28 gobol dalkan walakum fil qisas hayatun ma laga hirgeliyay ha la hirgeliyo Ameerikooyi taraam staag fadhiga ka xaaraantan qabqabo waaba ku faanaya gaangistarada reer hebel war bal waxaan xaaraanta ark dadyow markaas inta soo fariistaan idaacadaha hebel dila oo maxaa sugnaa marka soo naska kiin dhicna ma isaga noolaadeen duriyada shakhsiga waa gob waxaan wada kharisiinta oo kala ma adil ay kudmay noolaada adil ay kudmay Soomaaliya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بالله warkay caawa waashta waa yaallaa amniga qaranka waa yaallaa duqbiilow khayn gabdhaha iyo carruurta aad leedahay dadka laaya iyo qabiilooyinka aad leedahay islaaya waa meeshaad gasho tug dhala abxaara cudadaysan Soomaali naciibkeeda ilaahay ku abuuray khanziir kalab فالإلهي يقول لي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها رجل كها فساد لنا ومحلو فساد ليك يدل يدع يزنو يخمر يسقدر يبان ورقبر يرى مسكينة يقول مسكينة إصلاح نحن يهجاجين إني كان علي مين كان علي نو مين كان علي قف كان دورانا ورا يسكره قف كان دونه يا وريسن كرا كان يافكي قبت كاميراداسان قبسانيا قف كان دونه وريسنيا قفكي كريمنال ما بدبلي waa ku qabanaya bacda kastana waa ku qabanaya ana iskala kama ana gatay Soomaaliya noolaad umada muslimka noolaad miskiinka alla waa idin jeceliye wallahi waa idin jecela laakiin waxaan ka naxsanahay qofkii sharafta lahaa oo karaamada lahaa in najis dhalay ku xaaro ma yeelayo qoorsi ma yeelayo ظلمنا ما يلي عين ما يلي إهانة ما يلي قردرنا ما يلي قف يا قبيل يا قيس أنا قدر القانونية أنا متشفت والله بالله تالله قف إنه حاكي يقطفه إنه يوحاره إنه ظلم ما يلي قف أن ظلمنا ينا متشفت هدان قفني ولا لو رأى له بها يتالله يقرأ له ويقفي إله يعفي سمعت كينا يو ساسا رب الله الله يسي بارك الله فيك تراك بوضا تراك انتو كيميكاليسي سن iyo rasaas ka buuxiyo qarxin kara dalka Mareykan oo qabta kalab ku dhalay khatarta oo qabta anagi wuxuu loo leeyay waligay kama hadlin dhibaatadii ra'iisul wasaaraha markaan u tagay khayray soo gaartay isaga ii geystay jawaasiis walaalo hay ceebeen biir iska kayda shibaaleen waa iska daay شاكا ما مليون تصوع واحد يصير كان حالك وعاية هي أدور هذا الشيء فروكا قضية وكدينا هي ساوي حركة صقول هلا الدين ساوي حركة دور ساعة صقول نوعية يرينا وأف بيتش أنت سافر السنة تذكر لاية وذا القاعدة طلع صار هلا الدلو هلا خارجيو وركيني عالم كواجر Attention, My Rewards members. We're introducing a new way to save using My Offers within your MyPilot app. Make sure to update to the latest version of the MyPilot app. مركا جاهل أنت سافر ضدك لاية له رهيب اللاية My Rewards account. أسوأ الظلم. At the register. No more coupons or printouts. Every 2 weeks you'll see new offers that will deliver great discounts. اسكت القاضي ولا جاب لك حقن شري ولا جاب لك سكة دير شري اسكت القاضي هي سوقرين ولا ريال يلا ظلمين قفكي wax qaban karo qabo gabadhii dulmi lagu hayoy hooyadii dulmi lagu hayoy
qofkii Soomaaliya dulmi lagu hayo ii yeero anaa ku garab istaagin anaa dhawaaqin waa waraydhi walaalo way dulminde walaalo iga garbax hadduu kaa diido oo ku dhaco Soomaali ku dhaco ku boobo ku xado ku dilo walaalo ii yeero walaalay ii yeero walaalo ii yeero anaa volunteer ku ah bannaanka soo dhigaya حرامي أنا لقى حرامي سنين سنة بتكوي لي أنا ابن لي هلا توت سنة بتكوي لي خاين يوم خاين الوطن أمريكا أنا خطرت كوا الشباب حركة مسلم بين صراحين بنو ملايين يعني هنا إلي ما أنا نوصل دري يلا وكاس حارة نوصل دريس بحلوية فدك بان ugu soo diray iska dhiciya diray bidmay warsaaka baa gabadhu waxay tiri walaalow ninkan ku caayay iska daa haye walaa waxba kuma darsan okay that's الحمد لله والله ليال حويان waxaan Soomaaliya aan idin leeyahay qofkii ummadda wax tari kara qofkii karti leh qofkii haybad leh ummadda wax xataro xaq cilmigiisa soo bandhigo sharaftiisa soo bandhigo wax qabadkiisa soo bandhigo laakiin waa ku dilaya waa waray maskaxdan ka qabsanaya waa ku abiyuusaya torturka ana qof Allah haysta iyo ahaanaysa هاي ظلمي قال اسكت داعي هاي ظلمي قال اسكت داعي والإلهي على قبض عاسية خالد وحيد أنا ظلمي اللي وهي دنمارك يقول مو واكو إيمان يا ولاش إن شاء الله واكو إيمان يا هو أنا قلنا إن الدنيا كد ماي ولا ريال قربان شوقنا ولا لونه ورانس قال صنو ورعيبتنا نقرصنو ورقرمونك هي قشنك أن كل عشرين أن كبحنا ورعروتنا متبادسنا ورهوينكني قعنا ومجران ورويلشني قعنا ومجران ورجورك أن قرحنا ورعلماده هفي عنات والعلماء ستة توجة أنا يا توجة وهذه يا توجة وكل يوم هو توجة هو قاتلين ما نقول عشرين سؤال لا يودي عمل نقول عشرين أو أم حارة في صوماليا برتان نقول عشرين أو اسمه أبين أو سقايا درس أو أوري كويس أولي بوليس ما نقول عشرة، أو دبقون ما نقول عشرة، أو إلى يسير كسر نقول عشرة، أو واحد نقول عشرة صار لاوق لما أو سناوي ما نقول عشرة، ريانا ويك أب حالا ينادينا يكون ما هي تقبلوا من حتوية ضوع وده نسكر يا محاركة وربرهاتيسا وحكو ترينين ورهاتيسا كو عاورينين ورهاتيسا جدك كو مرينين ورهاتيسا قاسك كاب بحينين فيري $60 بعض مسلمة يا قاس خدرتها $60 ولي وقو السعودة ورهاتيسا بسعيد كلو ديسينين ورهاتيسا الخير على القبطي ايسا كو فرح سترين ثانكيو ايسا كو داينين يا فرما يكو دايان هل الدلاء هي بلو الدلاء وعشرات دوان شلت دوبنا تاريخه ويترو بسيط ظلم يا حرام يا خيانه يا الربا خايف هذا مرة دمبارتان تطبيقي لو تطبيقه أو كوي دمع ثير كوي دارتان كان وحيرة يا سبع مرة حيرة دريك مرة ما دارتان دمع ثير كوي هات كي يسوق لي مرة ما دارتان غير دونتان
wixii uu sheegay iyo dhuclihii uu soo qaaday iyo dadkii uu dhirigeliyey qofkii la dilana asagaa mas-uulka ah asagaa mas-uulka ah asagaa loo haystaa xayawaan sharciga maraykan ma yaqaan anaa ofar ku siinaya kulaha kii waxa dila waa duuban dacjaladii wiilkii candhuufta igu dhifsay u leeyay inaad dishaa ficnay anaa ofar ku siin lahaa lacag ku siin lahaa war waxaan xayawaanka amxaarka ah ummadda allah ka qabta khaayinka xayaalkii waale oo guryihii dumiye iimaanka alla inka qaadma idin dhahaa war wux sinji xuma oo dhaqan xuma xaq waxaad u leedihin soomaaliyay inaad sharaf u noolaataan nabadgelyo ku noolaataan walaalnimo ku noolaataan islaamnimo ku noolaataan noo dulmi laa dulmi maya intaas igu filan caawa maraykanna la dardaarmay soomaalina la dardaarmay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu adaa mahad iskale taas ilaahu caawa iga ajarsay casharkaas war amxaar dhalay oo naqaano amxaar inuu yahay oo madaxtooyadeedanadii haysta oo madaxdanadii hoosta uga jira oo calankanagii hoosaa u haysta oo khaa'in ah oo jaajuus ah oo tuug ah oo mujrima dhiigyacaba iyo dhiigyacaba la shaqaysta oo feera yara iyo af yara iyo futara yara iyo biiq yara ah iyo wada tuug dhashay ah yaa shacabkii halkaa ku dhawooda jaajuus iska dhigay dawladda samarka iska dhigay war maraykan oo been bay idiin sheegaan waa been bay idiin sheegaan oo shacabkan miskiinkaa been bay idinkaga sheegaan oo wallaahi billaahi been bay idinkaga sheegaan ayagaa dembiile ah iska jira iska qabta xaaraan aan laga xaaraansanayn war shacabka u hadla oo maraykanka la hadla oo iska dhiciya dadka idinka iyo maraykanka idin dhexeeya idinku diraya xaaraan aan laga xaaraansanayn wada dhigiicaba qaatila سقطان سنة واحد نصب لي واحد Turn left on I-35 North. والنمو والإسلام نمو والصومال نمو لا إله إلا الله محمد رسول الله وريالنا إسدلميني وريالنا إسدلين ورقفكي قيس مسلمة ودبان أركو وروناك دحدق وركلا قبو ورهدين نبدل الديدو ومتكود نبدل ديدو والله ما يري فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله ninkii gardaran la dagaalama allaa yidhi allah baa yidhi ninkii iyo naagtii gardaran intii tabartaya ah faqaatilu alatii tabgii xataa tafiya ilaa amri illaah labada qabiilkii gardaran baa la diriraynaa faqaatilu alatii tabgii xataa tafiya ilaa amri illaah labada wadaadkii gardaran baa la diriraynaa faqaatilu alatii tabgii xataa tafiya ilaa amri illaah labada qabqabalkii gardaran baa la diriraynaa faqaatilu alatii tabgii xataa tafiya ilaa amri illaah labada kibriyaan labada ganacsato cid walba Continue on I-35. qofka gardaran ilaahay baa la dagaalama ilaa xaqa uu noqdo war maxaad been isugu sheegaysaa aayaddaa keliya haddaad ku dhaqmi lahaydeen oo sanamka qabiilkood caabudaan ka tegi lahaydeen ka gardaran la dirira alla yidhi wallaahi billaahi tallaahi nabad baad heli lahaydeen aayaddaas haddaad la dagaalami isugu tegi lahaydeen ka daalimka ah wallaahi nabad baad heli lahaydeen laakiin ma rabtaan been baad rabtaa iyo xaaraan iyo khiyaano iyo tuugannimo iyo been inaad ku noolaataan war qofkii soo caanbaxaya meelo lagu soo caanbaxaa jira waxaa lagu caanbixin baa jira dil iyo dhac iyo boob iyo muslim laisku diro laguma caanbaxo no qofkaan doonaan waraysanaya anugu gabadhii dhibbanay soo wac ninkii dhibbana uu soo wac carruurtii dhibbanay soo wac kulli anaa waraysanaya bal waxaa carar waa qofkii dhaha warayso carar waa qofkii dhaha qabiil kastoo aad tahay soo wac anaa ku waraysanaya war wuxuu saqajaansano see waraysan karaa tan naagaa ku cayaaraanoo baabi'iyaanoo dayacaanoo
حق الدارانو حبس قليانو عيرين إيا ديبورتيشن ودياريان حاكا إي حاركا على الداران بهدرك ونارانيان خلاق دي بالونتي دينتي بالغتي شرف النولاده وقبنما النولاده oo farxad u noolaada war goor ma noolaana war goor ma guursanaa war goor ma haween aan war ma bakacsan karnaba ma guursan karnaba naago haq 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 aba naga guuray carar ilaa iyo wardhigli carar ba ku jira inta ka badan ma carari karo ilaahay ma carari karo inta ka badan ilaa iyo khaliijul arab iyo xeebaha iyo hawada 17,000 miles بنسوق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمريكا سلك كذا ماشي نقول نارا يعني واحد بدين يعني نقول لي نقول غفالة يعني. نروح المحيي نروح وشتا. كور مرة حنا نقول دبيسي. وصرير رحلة نقول دبيسي. الصومالي قفنا للنور يا صرير رحلة هلاهي. وينوها بين قاسي 6 أكتوبر يرى على صرير يا سليد زيتون وينوها بين قاسي سليد زيتون نميو يا قبليو شاكك ونعي وينوها بين قاسي ريو سليد زيتون وينوها بين قاسي ايوه سليد زيتون alright Soomaaliya walaalayaal wixii gafa waa nafyi shaytaan wixii aan saxin waa min Allah subhanahu wa ta'ala kulishku waxa weeyaan roy inaga kulligeen isku qabiil dad yar baan nahay oo Soomaali la yiraahdo oo wadankan Mareykanka degan oo dad kale soo dhaxdagay oo kala qaduwan ka diin duwan waraayas walaalaysan hoy is walaalaysan dulmigana iska dayno adab daradana iska dayno darada kibirka iyo najisnimadana iska dayno walaalays jecel isgargaara wax istara hadana wax istarayn dulmiga iyo gardarada iska dayno amma qof dulman hadana wallahi waa u helin oo billahi waa u helin oo tallahi waa u helin si cadaaladana u helin qofkii dulman oo arag wallahi waa u helin qofna ma dulminayaanu maalkayga iyo naftayda iyo xoolahayga waxaan u horeeyaa hala ii dilo dulmanaha inaan garab istaago ilaahu waa diiwagta marxaati ka aho aniga leeyahay see lacag u aruurin kartaa maxaa gabadha u kaalmeynaysaa see kirada uga bixin kartaa see korontada uga bixin kartaa see telefoonka uga bixin kartaa see dhaybarka ugu soo gadi kartaa yaa ku yiri cunto u soo gad yaa ku yiri lacag si qara ilaahay ka baqa oo dulmiga joojiye oo gabdhahow sameeya guddi gabdhaha oo gabdhaha masaakiinta oo la dulmiyo u gargaara oo ragga la dulmiyo u gargaara oo culumay dadka la dulmiyo u gargaara oo masaakiinta u gargaara oo hooyooyinka u gargaara oo kuwa xiran u gargaara oo caruuraha u gargaara male iigu rid ku rid khayr baladii rajayna miskiinka alle oo safar ku jira walaalayaal roob baana da'aya hurdo la'aan gaajo dhaxan roob waxaan waxaa u maraya tog iyo meel walba uga dhacaya waa ilaahay darti war walaalkaa waxtar muslim war haddaada tarayn dhibka ka daa xasbuna allahu wa nicma alwakiil حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
ورخل بدأ حبي قذين ما أنا يدوني ورا أنا يدلينه وتوقت المشتى ورا محارية وراقة مريكا يقول عير سنيس ورا محارية وراقة واسكدعين إلهي ذكيس برورنا قاعد كسيدين ميانو محارية وراقة مال والبوانا اسكدعين حرام والله لا شرفت له وليست وراك يوسف حاجة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس نبض بضربتها طريق يدنا مقادي سيد دونتو كمسعة الطريق قللا بض بيكو سعوتها أوكي والله كبر صوماليات أو نبض ما صور يستي وقرقاري من كذي من وقرقاري وناك دحدقي دعودي إن انكسر الربي حبطي حاري حاكا لسوق يدر ورياها يقول شيء سوي طريق نبض وكاس وعدالة وشرفته وكرامته ولا لماذا قبيل والبان أنا أنت هادين كرا العروة قف كبر دم مسكحي يقوم يستوينا ياكل عروة ريبل لأني أنا ريبل نبض نحدق ونحدق هذا ما ضلين شغلكم لي قف كي مسلم أنا ركوا نحدين عريا يدي كرا بحكوا جاي ريبل بحكوا جاي جبوي بحكوا جاي أوجادين بحكوا جاي أنا عندك عنه أنا صدّر وريا أنا صدّر أنا هو خلدمين قف كان دونا ورا سكرة حرب أروى قبيل كان دونا ورا سكرة ما محاربة أوجادين في ينوى مس الجباية ويه مس وحويه ولا راي من دبان لا قف كان دونا يا قبيل كان دونا ورا سكرة أنت الظلمان إلى صحيح الرأي مربى ظالم كان حقيقي وكعين إن شاء الله تعالى خير بندير الجنة ولا عليك شرفت له الله يديم بركة يقول الله يدسيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظلمك وحرام ظالمين وحرام دل يدع يا سحر يا قبيلات يا بخت يا نجسنمو يا قالنمو حسبنا الله ونعم الوكيل لا وداوين خير بان دين الجنة والعيال آد بانو دلناي وحبيبي حارو يا إلهي نوصل لدي دالك أنا قاعد كل يتي مدحتوية قاعد كل يتي جواسيس والله مدحتوية قاعد كواي أنا محارو تطبيقه إيش مدحتوية كواعي بحلوية وعي أو فرجينيا سلتشوا جرين وصرت الدالك ورن وهكذا تطبيقينه هي بحلو فرجينيا سلتشوا جرين صرت مدحتوية هالكاس على غيرها محارنا صرت مدحتوية والله بالله تالله أنا قاعد أستوفر ما شيء خير رئيس بيان بحلو بصوت شجوس توصل يوصل على تطبيق لو حرام كنا حيدا حرام تا توصل بالزناوي إلى كنا على والسكتشر جواسيس ورئيس الغرفة حب الشدة حسبنا الله ونعم الوكيل ورتشو راعي هذا القديم تنتظر راعي برباور كاجا عايز حاس كاجا دفع مسكين كالله هكون جبن دم قلقيس وركاه ورا علاده كده ورا dadka muslimka adeeyo dile kada warwa walaalka muslima maya maxaar baan anu maya isku dhaqan iyo isku diin iyo isku afmaniin maya maniin soo joog ninkii laga waayo soo joog baa laga helaa haajirta qaacido ama principle of education tacliinta soo bartay حاجة عرورة سنة لا تربية حالة دا let the child touch the fire الماء ناف اسكدع عنك ايالك ناف دبكها صوتها بتاع ناف عنك دبكها صوتها بتاع اسكدع عنك بمعنى الماء هذا واضح هذه $1 مليون أسيست 2 مليون حلقوا سياسي أدري أبو وحاس وضب هكون قبل إسكته ما دينيه he will not listen to you won't listen to you كتشوك دبك أبي كميري لذلك waxaa lagu leeyahay dhaaf let the child see down touch the fire دبك ha ku soo gubtay ha soo taabtay okay
cunugii waa gubtay waa ooyey waa la dawaawaray baa ka dhacday mar labaadka xoolo walba haddaad siiso marka hore lagama celin karo warka joog maya lama celin karo mar labaadka xoolo kasta haddaad siiso wuxuu ku leeyahay no danger very hot dabaan dambaskiisa dambas aan kuleeligsa la arag dabkiisa lagama leexdo adeer cagaha annagaa ku istaagi cagaha danahaaga raaco qur-aanka baro shaqayso wax qabso ilaahay ka baq hooyada ayaa aabbaha waxtar carruurtaada waxtar hanugu mashquulin saasaan ku leenahay yaa amxaar yaa jaajuus haddaad diidid oo wax naga hesho af carabi baan ku hadlaynaa af ingiriis baan ku hadlaynaa af soomaali baan ku hadlaynaa af talyaaniga xoogaa baan ka jacbursanaynaa watch out waad kibirtay oo kibirkaagii xaar isu bedel والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا